الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعشان كأني الشمائل المحمدية أول في الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا وإياه في جناته. waxaynu ku jirnaa cutubkii koowaad ee u baabaystay baabu khalqi rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam. qaabkii nebigu abuurkiisu u ekaa ayuu ka warramay. laba xadiis baynu soo qaadanay. maxamed labaad baan arujinayaa. baabkan wuxuu ka warramayaa muuqaalkii nebigu uu lahaa calayhi salaatu wasalaam. hore waxaynu u tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana ajmal annaas, dadka ka ugu qurux badan u ahaa. intaa marka waa inay marka hore ka qaacid ahaan u qaadanaa. ceeb buu ka dheeraa nebigu calayhi salaatu wasalaam, hadday nasab ahaan noqoto iyo hadday muuqaal ahaan noqoto. intaa haddaba haddaynu isla qaadanay, waxaynu kaloo iyadana shalay qaacid ahaan u sheegnay shayga quruxda loo yaqaano aadamuhu way ku kala duwanaan karaan. marka sidaa daraaddeed meelaha qaarkood, weliba darsigeenna maanta laba xadiisoo dhaadheer baa ku jira oo sifayntii nebiga calayhi salaatu wasalaam. meelaha qaarkood haddii aad maskaxdaada sida ku jirta ay khilaafto, hamoodin in nebigu sala allahu calayhi wasalam u foolxumaa. xaashaa, salawaatu ullaahi wasalaamuhu wabarakaatuhu calayh. xadiiska saddexaad, qaala alimaamu tirmidiyu raximahu llah xadaثna محمد بن بشار. wuxuu yihi waxaa noo waramay محمد بن بشار. qaal wuxuu yihi محمد بن kamil نعم waxaan ka qaadayna ka shanaad. نعم. qaala رaximه الله wuxuu yihi xadaثna waxaa noo waramay محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل baa noo waramay. qaala wuxuu yihi محمد بن إسماعيل xadaثna waxaa noo waramay abu nucaymin. abu nucaym baa noo waramay. qaala abu nucaym wuxuu yihi xadaثnaa waxaa noo waramay almascuudiyu. mascuudi baa noo waramay can cuثmaan bni muslim ibni hurmus. mascuudigaasoo ka warinaya cuثmaan ibni muslim ibni hurmus ka warinaya can naafic bni jubayr bni muطcim. cuثmaan oo isna ka warinaya naafic oo ina jubayr oo ina muطcim ah. can cali bni abi aalib buu ka wariyey radia allahu tacala canhu. qaala cali inuu yihi lam yakun الnabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu ma ahayn biطawiili mid dheer walaa bilqasiiri iyo mid gaabantoonna. shahnu lkafayni wاlqadamayni, wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ama huwa wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam shahnu lkafayni waalqadamayni, labada gomadood iyo labada gacmood inta jalqsayda la yidhaahdo wuxuu ahaa mid u waaweyn buu ahaa nebigu sala allah alay slam. ay adag yihiin oo haliid yihiin, yani xagga lafaha ayay lafuhu ka adkaayeen. lafo waaweyn oo adag bay ahayn ay lahaayeen gacmihiisa iyo gomadihiisa lugihiisu. dakmu ra'si buu ahaa, madaxiisu miduu weyn yahay. dakmulkaraadiisi, ru'uusulcidaamka lafuhu meelahay iska galaan iyo madaxyadooda mid u waaweyn. karaadiista waynu sheegi doonaa, laakiin waxaa u qaadataa meelaha lafuhu ay iska galaan ay u weynaa nebigu sala allahu calayh wasalam. tawiilu lmasruba, wuxuu ahaa timaha yaree laabta kaga yaallaa miday dheer yihiin. timaha sida xadiiska kale baynu ugu caddayn doonaa, halkaa ka soo bilaabma dhuunta ilaa xudunta laga gaadhayo timo khafiifoo weliba ishaysta. sida xadiis kale inoo tilmaami doontaan moodo in khad lagu dhigay ama liid lagu dhigay ayuu ku lahaa timahaas. oo tawiilu lmasruba, mid timaha shafka kaga yaalla ama shaashkaasi uu khafiif yahay oo u dheer yahay buu ahaa nebigu sala alla alay slam. idaa goortii mashaa uu socdo takafa'a takafu'an, takafa'a wuu iilanayay takafu'an iilasho
وسيدي قف هروسي صعداء كلا أيها النبي صلى الله عليه وسلم كأنما وحبت مودي سينحط إنه كهوبنا من صبب ما يصير إنه كصهوبنا أيها المودي سي لم أرى ما أرد بوري علي قبله استجى كهر يا ولا بعده دبدي مثله عطلة من ما أرد صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا وحنا ورمي سفيان بن وكيع بن ورمي قال سفيان بن حدثنا وحا ورمي أبي آباه بن ورمي علي المسعودي يكورني بهذا الإسناد إسناد كان هراء صارت عثمان بن مسلم عن نافع بن جبير عن علي أيوه حوي كاسو كلا أي إسناد ورمي نحوه أي نحو هذا الحديث بمعناه معنيه صوكرة حديث كان علي بن أبي طالب سيدي عارض إنه أهين وحا صوصاري مصنف رحمه الله تعالى أي صوصاري حديث كان مركا وحين كحجنينا رواده soo warisay inaynu sheegno magacyadooda iyo haybtooda محمد بن إسماعيل بن bilaabay isnaadka hore waa Imam al-Bukhari rahimahullah al-Imam al-Bukhari rahimahullah Abu Nu'aym ka warinaya Bukhari waa sheekhiisi al-Fadl ibn Dukayn al-Fadl ibn Dukayn ibn Amr ibn Hammad oo Dukayn kan naanayso وفضل بن عمرو سلاسالي الكوفي وأيمن ثقات أبو كميدياه وحكورنا يا مسعود الراوي ليلادو وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي مسعودي وحلوه إطلاقي أووي أيام مسعود لورنتيريو وكسوت إلى صحابي عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود أي كسوت إلى وعبد الله بن مسعود بأووي أو أووي صلبا وإن عبد الله بن عتبة بن مسعود إن عبد الله بن مسعود راوي هو راوي صدوقة واختلاط لكن أبو نعيم ويمكن كورنا سماعي سوى قديم انتهى الاختلاط كهر وكما عليه عثمان بن مسلم بن هرمز نك ليلة هذا والله هذلي علماء قاركود والضعيفين حافظ ابن حجر نوحي ولين الحديث هدي عدي راعدو تاغيرتنا حديث كيسا والله أقبل يا هديك لقاد المايو نافع بن جبير ابن مطعم النوفلي وحد علي جبير ابن مطعم صحابي قاصد علي علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين رضي الله تعالى عنهم إسناد كلابات بسوكر لي لبن راوي سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع والله ضعيف يايو وحولها من كرانيو علمي أقرأ يا حديث كالدبالين كتابك وحقوق قريبا وحانو كاملين ونحقلي سياسة حديث كيسي لغو ضعيفين أبي سوى إمام وكيع بن جراح الرواسي فرأي بسؤالين هذين الفاظ هذا موضوع حديث كان حديث كوحة كتيرا النبي صلى الله عليه وسلم مرة ديارين مرة قابلين 10 كيسالي بين كسو أرقنا يو ديرا بمعنى بحثا موهين ودرر المدي ذي ودرر مقيدو ودرر باقي هو يضدك وكمل بحثية سيدا موهين النبي صلى الله عليه وسلم مرة قابلين بحد حاطوها وحكنا كتير شثر الكفين والقدمين علماء waxay tilmaameen macnaha looga jeedaa waxa weeye yamiilaan ila al-ghilat gacma iyo luga adag buu ahaa waaya adaygu ma quruxba mise qurux ma xadiis kale Bukhari warinayo ana soo saaray wuxuu leeyahay Anas waligay ma taaban xariir iyo noocyada kala duwan noocyada tabaad noqoto ka jilicsan gacanta nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskaas wuxuu tilmaamay
nebiga gacmihiisu inay xitaa xariirta ka dabacsanaayeen oo gacmo waxa weeyaan naacim ah oo taabashada u roon ayuu lahaa nebigu sala allah alay slam haddaba labada xadiis la isu waafajinaya waxay yidhahdeen culamadu raximahumullah waxaa la isku waafajinaya isma diidayaane lafaha hoose marka lafaha la eego lafuhu way waaweynaayeen way adadkaayeen jidhka laakiin sare wuu dabacsanaa labadaasoo la isku darayna waa qurux bay yidhaahdeen marka lafuhu raggu waa inay lafa adadkaadaan dumarka se foolxumay ku tahay dumarka foolxumay raggala qurux bay ku tahay marka saasaa la isu waafajinaya waxaa kaloo ku jira xadiiska dakhmu lkaraadiisi karaadiistu waa jamcu kurduus baa la yidhahdaayo waa meelaha ay lafuhu ku kulmaan meelahaas nebigu wuu weynaa calayhi salaatu wasalaam sida labada ruug labada suxul iyo meelaha lamidka waxaa kaloo xadiiska ku jira tawiilu lmasruba masrubadu waxa weeye waa timaha shaashkee ragga ka soo baxa xagga laabta marka iyaga anwaac qof waxaa laga yaabaa inta yaree hore labada naas dhexdooda keliya inuu yar ku leeyahay laakiin ta nebigu sala alla alay slam waxay ahayd mid xidhiidhsan oo dhuunta laga soo bilaabay ilaa xudunta xidhiidhsan ayay ahayd marka tawiil saasuu ugu magacaabaya marka timihiisaasi miday dheer yihiin buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam takafaa horaynu usoo aragnay min sababin ay mowdicin munxadir baa looga jeedaa meel hoobad ah inuu ka soo daadegay ayaa la moodaa siduu u socdo macnaheedana shalay baynu tilmaamnay hadalkan uu leeyahay lam ara qablahu oo cali ma rasuulka hortiibuu noolaa cali rasuulka hortiibuu noolaa haddaa siduu u leeyahay cid ka horreysay iyo cid ka dambaysay ma arag lamida nabiga sala allahu alay wasalam عوث أحسنت وحوجة جدا نرشي النبي مركي النبي وأنتوا النولا إيا أنتي وبنتي كذبة اللي على وسين ولا النبي عليه الصلاة والسلام ده بدي صدق صلاة وسين ولا مركا أنتي وبنتي إيا أنتي والنولا عد لميدا أو لق روحه ولي ما أرد بليه تسأل وجه لم أرى قبله isaga ka hor ay qabla wafaatihi buu uga jeeda ay qabla ugama jeedo intaanu dhalan ka hor oo dee cali nabiga in badan buu ka yaraa haddaba xadiiskan dacfi baa ku sugan laakiin in badanoo alfaadiisa ka mida axaadiistii shalay aynu soo tilmaamnay ee saxiixa ah ayay ku jirtaa xadiiskanna waxaynu ka qaadanaynaa uu sawir guud oo uu ka bixiyey rasuulku sala allahu calayh wasalam siduu u ekaa hadday noqoto xagga dhararkiisa hadday noqoto xagga gacmihiisa iyo lugihiisa hadday noqoto madaxiisa madaxa weyn sideedaba dadkeen waxaa laga yaabaa inuu yaqaanaan inaanay qurux ahayn madaxu hadduu weyn yahay laakiin jidhka kale ay waxa weye aanay kala weynayn oo jidhku uu isku fadhiyo waa qurux weeye waxaanay calaamadu tahay qofkaas qof fahmad badan oo fariid ah waxyaabo badan bay leedahay waxaa badan aba ay culamadana ka hadlaan qofka madaxa yaree weliba dheer labadaa isku darsadaa waxay tilmaamaan waxay yidhahdaan caqligiisa yarkaa caqligiisa ayaa yar bay yidhahdaan laakiin qofku hadduu madaxa dee jirka iyo kala weyn oo madax weyn sida dadkan xanuunsadee madax xanuunka ku dhacee madaxu fido kuwa loogama jeeda madaxweynida waxaa looga jeedaa madax weyn oo laakiin jirka kalena waxa weeyaan ay isu dheelitiran yihiin baa looga jeedaa lafuhu meelay iska galaanna nabigu sala allahu alay slam isla xadiiskana waa inoo tilmaamayo inuu nabigu quwad lahaa calayhi salaatu wassalaam socodkiisana shalay baynu tilmaamnayo socod qof xanuunsanayo oo tacbaan oo daciifana sidaa uma socon jirin qof lagu hajiinayo iskibrinayo uma socon jirine nabigu sala allahu calayh wasalam cagaha si dhulka uga qaadaya ee xoogga leh awoodda leh ayaa waxaa la moodaya sidii qof saa usii socdo meel ka soo daadegay oo waynu naqaanaayo qofku hadduu meel sare ka soo daadagayo ma lagu ujiidaa may awood buu u baahan yahay hadduu lagu hajido u dhaca u kufayaaba marka waxaa laga tilmaamayaa uu socod awood leh oo waxa weeyaan
laakiin aan dheerayn iyo degdeg iyo carar aan ahayn kaasuu baa looga jeedaa marka khulaasada xadiiskaynu ka qaadanay waxa weeye nebigu sala allahu alay wasalam bacdu awsaafihi inuu inoo sheegay xadiiska toddobaad qaala raximah allahu tacaala xadaanaa waxaa noo warramay buu yihi axmed ibnu cabdata adabbiyu albasriyu iyo wa caliy bnu xujrin iyo wa abu jacfar muxamed ibnu lxusein wa huwa abu jacfar kani ibnu abi xaliimata weeye ninkii sidaa caanka ku ahaa waalmacnaa macnuhu waaxidun weeye qaaluu halka waxaa ku jira mas'alo musطalaxo horaynu soo aragnay oo shiikhu wuxuu inoo soo arooriyey 3 xadiis oo 3 shiikh waa isku xadiis keliya ah laakiin 3 shiikh oo mid walba gooni uga maqlay 3 shiikh waxay kala yihiin axmed ibn cabdat adabbi iyo cali ibn xujrin iyo moxamed ibn xusein ibn abi xaliima 3daa shiikh haddaba wuxuu doonayaa inuu dhammaantood ilaan ma odhan karayo xadiis keliya waxay wareen axmed cabdidane isnaadki intuu sheego haddana xadiiskii labaad wixii dhan baa dheeraanaya xadiis keliya laga yaaba 3 safxadood inuu qaato marka muxuu samaynayaa wuu isku cadfayaa marka dee 2 dariiqa u bannaan inaad furuuqda sheegto alfaada iyo mar hadday macnihii isku mid inaad tidhaahdo waa isku macne 3daa xadiiskoodu isma khilaafsana waana sida dariiqa uu maray marka 3doodiiba intuu israaciyey buu yihi walmacnaa waaxidun alfaad ba hadday doonaan ha kala duwanaadaan laakiin macnaha 3daa sheekh xadiiskoodu waa isku macne sidaa daraaddeed lafdii buu soo arooriyey mana kala soocin lafdigani ma lafdigii axmed ibnu cabdaa ma kii abu jacfarba ma kii caliy ibnu xujrinba laakiin isaga muslim haddaad imika eegto muslim inta badan xitaa iska daa alfaadeen wuxuu ilaaliyaa siyaqa ay ku wariyeen ma taxdiidba ma ikhbaarba ma cancana ma samaacba ayuu kala fasliyaa marka dariiqaasoo maro wuxuu yihi walmacnaa macnaha 3daa sheekh xadiiskay ii wariyeen waaxidun waa isku mido waa macno waaxida qaaluu waxay yidhaahdeen xadaanaa ciisa oo waxaa suuragal ah 3dooduba inaanay xadaanaa odhan oo mid akhbarana uu yidhi midna samictu uu yidhi laakiin de isagu iminka lafdiga ma eegaye macnaha unbuu eegayaa qaaluu waxay yidhahdeen xadaanaa waxaa noo warramay ciisa ibnu yuunus baa noo warramay can cumara bni cabdillaahi uu ka warinayo cumar ibni cabdillaahigaasoo mawlaa gufra mawlihiisii ah qaala wuxuu yidhi cumar xadaanii waxaa ii warramay ibraahiim ibnu muxammadin ibraahiim oo ina muxammada oo min waladi caliy bni abi aalib cali bni abi aalib tafiirtiisii ah ayaa ii warramay qaala wuxuu yidhi kaana caliyun cali wuxuu ahaa ibnu abi aalib ilaahay ha ka raali noqdeen idaa goortii wasafa uu sifeeyo uu tilmaamo rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alle goorta uu tilmaamo qaala wuxuu odhan jiray lam yakun ma ahayn rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii alle biawiili mid dheer oo almumaqidi dherarkiisu aada u gudbaxsan yahay isaga alfaada inoo sharixi doono matnigu inoogu keeni doonaa lafdi walba macnihiisa walaa bilqasiiri mid gaabanna mu ahayn almutaradidi iskashan oo gaabid daraaddeed aad mooddo in laisku cufay sidaana mu ahayn wa kaana wuxuu ahaa rabcatan min alqawmi rabcatan dhexdhexaad min alqawmi qof lagu biiranayaa ma jiraayo qofka aan dheerayn gaabnaynna af soomaali maxaa lagu yidhahdaa gobola buu ahaa oo qofka arkaa wuu dheer yahayna odhan maayo wuu gaaban yahayna odhan maayo ayib lam yakun muu ahay nabigu sala allah alay salam biljacdi mid timihiisu ay urursan yihiin oo tima adag oo alqatati ama alqatidi oo taada waadna fadxayn kartaa waadna hoos dhigi karaysaa qatidku markaa waa qeyd la socdo jucuudadoo yacni adaygiisu miduu daran yahay muu ahay walaa bisabti ama sabiti oo bacda inaad reebtay inaad hoos dhigto mid timihiisu ay jilicsan yihiin oo bis yihiinna muu ahayn kaana wuxuu ahaa jacdan mid timihiisu ay yihiin
الضيق رجلا يرى اللابلابما انت نو سوكردي جعدينا ودي كان وصلي لكن رجلا باس يعديسايو wuxuu uga jeedaa timihiisu waa dhaxdhaxaad ka soo tima aan isqabsanayno kala yaacayana ma ahayn oo aan ururi karinba tima adag oo yar yarna ma yahay waxay tima dhaxdhaxaado meelaha qaar koodna ka laabi kara oo tima qaar kood iyagoo jirsan haddana soo yara laablaabma qaarna ismaba iman karaanba qaarna waa kuwa junuuda waa saddexda marka nabigu ka dhaxdhaxaad ka abu sallallahu alayhi wa alihi wasallam walam yakun nabigu mu ahayn bil muhattami midburan wa abu shir ismu ahayn nabigu sallallahu alayhi wasallam wala bil mukalthami mid wajigiisu goobaabi yahay oo uu yahayna mu ahayn وكان وحوها في وجهه وكان وحوها في وجهه وجهيسا وحا كدحسونا تدوير وريقيا marka labadani isma diidano mid wada oo ahamu wahay laakiin dhinacyada qaar kood ayuu ka ahaa sidii mid soo waxa weeya goobaab oo kala wakana wuxuu ahaa fi wakana waxa ku sugnaaday fi wajhihi wajigiisa waxa ku sugnaa tadwiir yada goobaabin yani goobaabin ma wada ahayn oo dawanaga niri wala bil mukalthami mid wajigiisu oo uu yahay ma ahayn markaas uga daba tagay wuxuu yiri وكان في وجهه وحكسنا تدوير قوابين يعني بمعنى ان العيد قاركود ايوه حوين قوابين وكذا ابيض مشرب وحوها ابيض مدعب او مشرب لا دحقلي عدان عسان لا دحقلي ونقول ان النبي واصح لو يقانو وي سمرده لو يقانو وي اسمر بو وين سو ارغني ازهر لو ينوم من دوله marka waxa weeye cadaan cadna mu ahayn demadona ma ahayn laakiin wuxuu ahaa cadaan aad mooday casaan la yara dhexgeliyo cawlaani ka soo baxdayo waa midabkaa bay yidhahdeen camuudda u ege ay carabtu leeyihiin adcaju lcaynayni wuxuu ahaa indhihiisu miday madmadow yihiin wilka yaree madow ayaa madowgiisu aada u daraa oo marka caddaantuna aada u cad ahay ويلكن آدم مدوياي أدعج باليادا أفعلبي وأنا قرح وي وإني سمعنا ذاتك قاطبة الموضة إنها بلوغ يوروبيان كيلو قرحية قرح معها كستو خلقي لا وياي لكن قرح مركع عضالتنا آدم عضاي مدويا وشنو آدم مدويا وح عصوصي وحبتهم آدم كتشري سلاسوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أهدب الأشفار wuxuu xiribihiisu mid ay dhaadheer yihiin xiribaha jaliil mushashi walkatadi mushashku inoo iman doonaaye waa lafaha dhabarka culimada qaar oo katidkana culimada waxay ku tilmaameen labada garab meesha iskaga yimaadaan kaahilna waa la yidhaahdaa labada garab meesha ay ku kulmaan halkaana wuu u weynaa nabigu sala allahu alay wasalam ajrad wuxuu ahaa rasuulku sala allahu alay wasalam mid aan timuhu jirkiisa ku badnayn ajradka waxaa la yidhahdaa asal ahaan qofka bilaa timaha ah marka waxaa looga jeedaa waxaana inoo iman doona xadiiska kale gacmaha iyo laabta aynu sheegnay iyo timo kule laakiin jirka inta kale timihiis kuma badnayn dadka qaarkood baa dhabarka timo kule meelo badan bawdyaha timo badan kule marka ajrad buu ahaayo ma tima ma lahayn oo looga jeedo timaha dee jirka kale kuwa madaxu iyaga waa quruxo way joogaan laakiin timo meel jirkiisa kale ku yaalla meelo kooban mooye nabigu calayhi salaatu wasalaam ajrad buu ka ahaa duu masruubatin masruuba mid u saaxiiba weeye waa timaha shaashkee laabta ku yaalla ee hore aynu soo aragnay shathnulkafayni waalqadamayni iyana waynu soo aragnay labada gacmood iyo gomadaha lafaha ku yaalla lafaha sacdadka oo lafa adag bay ahaayeen idaa mashaa goorta uu socdo taqallaca kor buu qaadi jiray lugihiisa kaannamaa waxaad u moodaa yanxaqu inuu ka soo hoobanayo fii sababin meel sare u hoobada wa idaa goorta iltafata uu daymoodana iltafata macan mar buu wada daymoon jiray
oo isha kamuu qaawisi jiray marka qof la hadlo qofka si toos ah ayuu ugu soo wada jeesan jiray وإذا التفت قورته وديمونه التفت معا مربو وذا جيسن جري بين كتفيه لبدي سقرب نحدود وحا كسقنا خاتم النبوة نبي نمدى شابد دي با كسقنا والنبي صلى الله عليه وسلم سيدي حديث تقلين أبوي من دونتا هل كان لبدا قرب نحدود وحا كغيا لي عدير أو أرسن أو تمرك بحين أو خاتم النبوة على مد النبي نمدى أيها كتالي ونبي مطاع وهو رسولك صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين النبي ذكي له ختمين وي أجود الناس ذاتك كوود يقسي سنبوها أو واسع صدرا حق العبد وأصدق الناس ذاتك كوورهم برنبوها لهجة حق هذا الكيامك ورمينا كوورهم برنبوها وألينهم وحوها كوود بعسن عريكة حق الضبيعة وأكرمهم كرامين تبضاما وشرفت بضن عشرة للنولاشنا أيها من رآه كي أركب بديهة سكري سكو أركا هابه وكبك الشري ومن خالطه كي لم معاملة نحقلا معرفة حق قرشدنا أحبه وجعلاني يقول وحورنيا وليه ناعته كالسفينيا إساقا يسوچ عليه لم أرى ما أرى قبله إساقا هرتي قيردي سي ولا بعده الدبدي مثله إساقا كلام أرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نادي الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا قال أبو عيسى وحوري وكم أبو عيسى الترمذي رحمه الله سمعت وحن مغلي أبا جعفر محمد بن الحسين أبو جعفر محمد بن الحسين بن مقلي وصدح الشيخ متكملة أو يقول له سمعت الأصمعية أصمع نك لينادين اللغوية اللغة عربية آد يقال يقال كأه أيام مقلي عبد الملك بن قريب بن لورنجرين أو يقول له في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم كلمتها على وادك سدي تلمامد النبي صلى الله عليه وسلم معاني ذو إسقه الشيء أيام مقلي ومحيري كلمته بمركها طبعا كلمة أفسرية أو عبد الملك بن قريب وحوها رجع أفكار عربي الله ضبط فريستين لويديو
wada af waliba wuxuu leeyahay kelmado dadku markay maqlaan ay wada garanayaan iyo kelmado u baahan in si gaara loo sharaxo afkeennaba uu ka buuxaa oo kelmado badan baa dadka afyaqaanka ee hadday soo istaagaan oo inagu imtixaamaan laga yaaba inay in yari garato markaa sidaasuu ahay nin afyaqaana uu ahaayo oo af carabigu aada u yaqaanay marka hadalkii wuu fasirayaa cali marka hadalka maxaa ku jiray laysa bitawiili lmumaqidi mumaqidku waxa weeyaan buu yidhi aldaahibu tuulan ka kor u baxa weeye dheer weeyaan samictu acraabiyan mid reer miyaan maqlay buu yidhi asmaci oo yaquulu la fii kalaamihi waa meesha dee afka laga qaato oo afka badanaaba afka waxaa lagu ilaaliyaa miyiga iyo baadiyaha carabtuna saasay ahayd oo carabtu waxay samayn jireen ubadkoodu markay yaryar yihiin miyigay u diri jireen laba ujeeday markaa ka ahay ujeeddada koowaad inuu afkii soo barto oo badanaaba magaalooyinka dadka magaalooyinka ku dhashaa luqadaha wax yar bay ka isticmaalaan qaar badanna waxaa laga yaabaa in magaaladaba lagu sameeyo miyigaba laga aqoonba marka waxay samayn jireen marka dadka luqada aada u doonaya inay bartaan markay luqadda baranayaan miyigay u bixi jireen deedna reer miyigay la kulmi jireenoo kelmaddaa macnaheedu waa maxayo saasay usoo urursan jireen marka wuxuu yihi samictu caraabiya nin reer miyaan maqlayoo yaquulu la fii kalaamihi hadalkiisa isagoo hadlaya leh tamaqada fii nashaabatihi waxa weeya tamaqud buu la yimid nashaabadiisa markii uu warankii galayay ay maddahaa maddan shadiidan wuu kala jiiday haddee kala jiidintii ayuu tamaqud u isticmaalay marka maxaa laga qaadanayaa muu ahayn qof dheeroo kala jiidsanoo aada u dheer muu ahayn waalmutaradidu mutaradidku addaakhilu waa kii gelayay bacduhu barkii fii bacdin barhka kale qisaran gaabni daraaddeed qof aad mooddo in laisku cadaadiyey mutaradid yacni qof aad mooddo inuu isgalay oo kale noocaana muu ahayn gaabni noocaas oo kale yani aada uma gaabnayn wa ama alqatadu buu yidhi fashadiidu ljucuudati waa ka timihiisu ay aadka u adag yihiin wاrajulu اladii kii weeye wاrajulu ninkii alladii kaasoo fii shacrihi timihiisa xujuunatun ay ku sugan tahay ay tahanin qaliil ee laalaab yari ka uu ku sugan yahay wuxuu macnaynayaa rajilan soo rajilan inama soo marin rajilku waxa weeye ka timihiisu in yaroo laablaabi ay ku jiraan way jilicsan yihiin laakiin meelaha qaarkood ayay ka yara laablaabmayaan rajil baa la yidhaahdaa wa ama almuطahamu miya falbaadinu waa kii buuraa ay alkahiiru laxmi hilibkiisu uu badnaa kaana nabigu mu ahayn calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo lagu fasiray muطahamka shiiku ma sheegine almuntafiqu lwajhi aladii fiihi jahaamatun ay cabuusun min asimani waa qofka wejiga ka naaxay naaxintaa uu wejigiisu uu naaxsan yahay baa waxaa la moodaya qofka arkaya qof cadhaysan inuu yahay marka qof buuran u ahay nebigu sala allahu alayh wasalam culimada qaarkood waxay dhahaan maya mudahamka laftiisu waa naxiif qofka aadka u dhuuban marka kelmadaha af carabiga waxaa ku jira kelmad laba macno iska soo horjeeda loo isticmaali karo oo mudaham qofka buuranna waa la yihahda ka aadka u dhuubanna waa la yihahdaa marka labada dee midnaba ma ahayn kii aad ku fasirtaaba nebigu mana dhuubnayno qof aada u dhuuban muu ahayn calayhi salaatu wasalaam qof buuranna muu ahayn marka dhexdhexaad buu ahaa waalmukaltamuna almudawaru lwajhi ka wejigiisu wareegsan yahay goobaabinta uu yahay weeye waalmushrabu mushrabka ku jira abyadu mushrabuna alladii kii weeye fii bayaadihi cadaantiisa xumratun casaan ku dhex jirta weeye waaladcaju adcajkaad xadiiska ku aragtayna ashadiidu sawaadi lcayn ishiisay qofkay aadka u madowdahay baa la yidhaahdaa waalahdabu ahdabka waxaa la yidhahda alطawiilu lashfaari qofkay xiribihiisu dhaadheer yihiin timahanay dhaadheer yihiin waalkatadu katadka waxaa la yidhahdaa mujtamicu lkatifayni labadan garab meesha ay ku kulmaan ayaa katad la yidhaahdaa kaahilna waa la yidhaahdaa ajrad shiiku ma sheegin asmaci ma sheegin ajradkuna oo inagii tilmaamnayo waxa weeye hayru ashcar yacni ma tima badnayn baa looga jeedaayo timaha jidhkiisa kale ku yaalla ma badnayn xadiis kalena waxaa noogu iman doonaa
afar meelood jirkiisa ka mid in nabigu timo kula inta kale aan timaba kulayn calayhi salaatu wasalaam masruubadana hore u soo aragno waa timaha yar ee shafka qofku raggu ay ku yeeshaan ee shaashka la yidhaahdo weeye qaabku ugu yaalayna xadiiska dambe aynoo tilmaami doona washathnuna hore u soo aragnay alghaliidu asaabici weeye qofka ay farihiisu ay buurbu adag yihiin weeye oo min alkafayni iyo walqadamayni faraha lugaha iyo faraha gacmuhu qofka ay adag yihiin ayaa la yidhaahdaa shathniga la yidhaahdaa iltafata macan waynaga sheegnayoo ay jamiican u wada jeesan jiray xadiiska kale inoo iman doonaa in daymadiisu ay mulaaxado ahayd marka waxaa lagu jamcinayaa daymada marka wax daymoonayo ee wax eegayo waxbuu mulaaxadayn jiray laakiin marka uu cid la hadlayo isagoo jirkiisu ka sii jeedo lama hadli jirina wuu soo wada qaabili jiro wuu soo wada jeesan jiray haddii qof u yeedho nabigu sala allah alay slam saa uu eegi jiro maxaad leedahay ma odhan jirine wuu soo wada qaabili jiray aadaabteeda ka mid tahay iyo khuluq aadka aadka u wanaagsanay rasuulku lah calayhi salaatu wasalaam marka qofka kula hadlaya ama ha yaraada ama ha weynaada noocuu doonaan noqdeen waa inaad u muujisaa inaad dhegaysanayso oo aada danaynayso oo aada qiimo u yeelayso haddaad kaas leedahay waxbuu ku dheeryahayna aada u khuduucdo isu dhigto kaad wax iska bidaysana aad tahay maxaad naga eegaysaa maxaad leedahay waa akhlaaq xumo akhlaaqda wanaagsan waxa weeye bini aadamku waa isku midee inaad markaad la hadlayso ama ay kula hadlayaan aada qaadiso dadkana waxaa saaran qofku markuu qof ku mashquulsan yahay uu la hadlayo inaanu dhinaca kaga faruurin isaguna aanu soo dhexgelin haddii sidaa le dee waxay noqonaysaa kadaa kaa soo horeeya kanaa mudan kan lala hadlayaa mudan waa inaad sugtaa dowkaaga marka aadaab badan iyo akhlaaq fara badan baa muhima nolosheedu ay u baahan tahay si xaalkeedu u hagaago taqallucuna xadiiska kuwa taqallucu an yamshiya biquwa si awood leh waa inuu qofku u socdo wasababu alkhuduur hore u soo aragay sababka alkhuduur weeye waa daadega taquul waxaad odhanaysaa in xadarnaa waanu soo daadegnay fii sabuubin wa sababin meel saraanu ka soo daadegnay wa qowluhu uu yidhi jaliilulmushaasi mushaasku waxa weeyaan buu leey yuriidu wuxuu u jeedaa ru'uusa almanaakibi manaakibta dushooda mankibka waxaa la yidhaahdaa qarqarkaas iyo cududaasi laftaa ay ku kulmaan somaali maxaa lagu yihahdaa gardaadu dawaalkane marka laftaasa sheegay laftaa yaree cududan iyo ay ku kulmaan iyo qarqarku ku kulmaan garabku waa xagga dambe harjaw maahay waa lafbe calaa kulli xaal waa soo baari doonta waa soomaaliha waa lafta halkaa ka muuqatee halkaa qarqarkaasi iyo cududu ay iska galaan halkaasaa mankib la yidhaahdaa xaggan ka dambaysa waa garab inaga waxaa laga yaabaa dad badan inay halkana garab iska halkaana garab yidhahdaan waxaan oo dhan ba inay garab wada yidhahdaan garabku waa laftaa dambe wey yuriidu wuxuu u jeedaa ru'uusulmanaakibi oo lafahaas ay ku kulmaan qarqarka iyo cududu ku kulmaan ayuu u weynaa nebigu sala allahu alay wasalam waalcishratu cishrada xadiiska ku soo aroortayna alsuxbatu waa waxa weeye wada noolaanshaha weeye waalcashiiru alsaaxibu weeye qofka cashiirka waa qofka dee kula nool marka suxbaduna waa wada jooga iyo wada noolaanshaha weeye albadiihatu badiihada waxaa looga jeeda almufaaja'atu yuqaalu waxaa la yidhaahdaa kadiska yuqaalu waxaa la yidhahdaa badahtuhu waan ku kadiyey biamrin arrin baan ku kadiyey ay faaja'tuhu si aanu filaynin ayaan ugu sheegay marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa nabiga sala alla alay slam qofka la kulmay hore aanu aqooninin wuu baqaya waliba baqdin weyneyni ku jirto yani haybad buu nabigu lahaa sala allahu calayh wasalam haybad buu lahaa laakiin haybadaasi haybad marka la dhex galee lala noolaado baqdintaasi dadka way ka biltay way jeclaan jireen jacayl weyneyni ku jirto marka uu qofku arkay si kadisa uu la kulmay hore aanu aqoonini baqdi baa gasha haybad iyo weyneyn daraadii markuu la noolaaday uu la joogo maalmana jacayl weyneyni ku jirtay isu bedesha sidaas waa nabigu sala allahu calayh waala alihi wasalam
حديث كلام بين راعينا نوايا واسكو معنى لماذا الحديث طبعا لماذا الحديث بوحن هو مرينا إن سند هم يصح لماذا الحديث لكن البرنامج الفادي كم ده وحي حديث كلا أيد الشاهدون نقريسا وحي لو ويانا ضعيف في بعض كل نقريسا قال رحمه الله تعالى حدثنا وحنور من سفيان بن وكيع بن نور قال وحوي سفيان حدثنا وحنور من جميع بن عمر بن عبد الرحمن من كان هذا جميع إلى عمر إلى عبد الرحمن العجلي بني عجل غير كان كذا شيء إملاء بنور من يرين علينا كركي ونو يريو من كتابه كتاب كيسوي نو يري وطرق الحديث كله قاطع وبلغ هره حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمك داين واخر سنه انه قاب كله ورين جري waxay ahayd sheekhu intuu soo fadhiisto ayuu ardayda u yeerin jiray dadna way qoran jiray xadiiska waxa iga waramay hebel baa ugu waram hebel baa ugu waram marka mar wuxuu ka yeerin jiray xifdigiisa oo wax waraqama sitay uu yeerin jiray marna kitaab xadiistan uu qoray intuu la soo kala baxo ayuu yeerin jiray marka sheekhani sidoo uu waramay waxa weeye kitaabkiisii buu nooga yeeriyay weeye marka waa طريق kamida طرق الحديث كالنبي صلى الله عليه وسلم لو تحمله قال وحول الشيخ خاص الجميع أخبرني وحي ورمي رجل من بني تميم غير بني تميم أو ولبا من ولد أبي هالة من كان لأورنجري أبو هالة تفيرتيس أبو هالة سو زوج خديجة بنت خويلد أفدي النبي صلى الله عليه وسلم من كبيره هرقل جري وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها حاسكي وجهر يا رسولك الجوسري عليه الصلاة والسلام خديجة عرمل لي من الجوسري عليه الصلاة والسلام لمن نبأ وجهر لبدا من كمدا أي أبو هالة الأولجري أبو هالة مرك أبو هالة وحلوه مجعاوي وحد علينا هالة ليلة هي إنا هند ليلة هند أو هندي دوال الله بحايو عربت ولا رجع حتوي بعجة هند ومقعين رجع يدمر في وداعا ما كان الله سيء ولا شيء مركب وحد كنت عارفين يا أول من كاي ورمي ومن بني تميم قبيل كاره بني تميم وكل شيء كول ومركب لبعضه ومن ولد أبي هالة أبو هالة أوليجي لورنشري تفيرتي سوى سعد على ما بمعنى إن كيسي معها وإن وجوه وهوي أبو هالي وهذا نسي قيح يايو وزوج خديجة أوليجي دي هراء وهي يكنا وحلا وكن ينشري نك غير بني تميم أبو عبد الله بن أولجي وهو حكورنا يا هذا بن كاسي عن ابن إنرو لأبي هالة أبي هالة السبناضي من أبو هالة أوضاي كان مودلين أووبو يعني عن الحسن بن علي حسن بن علي ابن أبي طالب أيوك إن كان لك السيوري حسن بن علي بن أبي طالب خديجة معيوتها خديجة حسن يا أيوتها فاطمة يا غالي فاطمة بنت الرسول سويدة خديجة ما نعم قال وحول سألت خالي أبتغي بويدي هند بن أبي هالة واكن ما كان هندي لبدي وبدأ خديجة وده شيء أبو هالة إن أنت لو على رجل هالة هنا كانوا على رجل هند مركه هندي يجيبوا كورينيا مركه ده هندي ما أنت حسن وحوياي أبتبويا وهو يدي يا فاطمة أي ولا لين حق هو يك ولا لين هند واحدة شيخ خديجة فاطمة واحدة شيخ خديجة مركه أبتجي بكورينيا سألت خالي أبتجي بن ويدي هند بن أبي هالها وكان وحوها أبتجي والصافا مد سفينتا وفي عن والصافا مد سفين بدن أيها محاويدي عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم قابك نبيها أما قروح النبي ويدي عليه الصلاة والسلام وأنا أنونا عبد الحسن هاي أشتهي واحد شعلي سنة
أن يصف لي إنه إيسفيو منها قروح النبي حقيدا شيء يصفيو أتعلق به أن قبصده تذكر كان عدو أن أقورها هذا هندي وكوينا حسن النبي وسوق عليه الصلاة والسلام الصحابي بوها أي شيء دينا يربوها لكن كانوا أبتيجي كوين أيوة يدينا يا أولي إيش قاب كي النبي يقروح يسوع عليه الصلاة والسلام فقال وحول هذا هند ما صفين يا مكة رسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوها فخما مدوين أي عظيما مفخما لويني فخما وقلت هذا بمعنى وينين لوينين مدوين بوها يعني قف وين عظيم بوها يعني شركة لو ما تشيله وين شركة لو ما تشيله وحنا لو هذا حق وناقة يقرحنا يهيبد نوع كستبا وحا قف وين بوها أولما مفخما لوينيو ودد كل أي تعظيميان أي وينيان بوها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يتلألأ في وجهه وجهي سائفي نبي صلى الله عليه وسلم تلألؤ القمر سيدا ضيحه يفتيمه هو يفتين كوبحيو سيدا سلمنا أي نبوها وجهي عليه الصلاة والسلام ضيحي ليلة البدر ضيح هذا ما هي ليلة البدر هبيك ودميسك تريا سنة طبناتك هبيك كاس ودميسك تريا هاي ضيح يفتين أهان سيدا ويفو أي وجه النبي ويفي جري عليه الصلاة والسلام وينو يمنطون أصحابه قار كودوله هبين طيب لما يستريا مرة ضيح أيها مرة رسولك صلى الله عليه وسلم وجه أيها الله كل عطايا وجه النبي كقرح بدنا ضيح كيفتين بدنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أطول من المربوع أطول وهو متكير من المربوع دحدحاتك قبلك أي شيء وحديث فيه روحة المامي إنه دحدحاتها كان نوع قدري ما ينير أنه حاجة درك يرحي وأقصر وركه سيكقابنا من المشدب قفك كوديرنا وكقابنا دحدحات كان إن يربك ديرا مركا ميل لحي أيو كسفي عظيم الهامة مدحي سوحها مدوين يا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هامة وعين هذا مدح عدن ما هو برتك مدح marka laakiin sida sawaabka waa madax hore meelka looga jeedaa rajul ash-sha'b timihiisu waxay ahaayeen qaar aan urursanayn wada fidsanayn laakiin waxa weeyaan meelaha qaarkood ka soo yara laablaabma in faraqat hadii ay kala tagto aqiqatuhu timihiisu farqaha u kala geyn jiray wa illa هدي آني كاتينا فلا يجاوز مدافين شعره تميسو شحمة أذنيه دقيرة مدافين يعني برورتا لبدي سدقود وحلو وجه ذا برورتا ما شاعرون قالوا دقيرة ضمر كواي كحدان دقاه يدها كحدان إذا قرتي هو يسوي وفره وما يستره هكذا وقت ما يا تميسو نبي صلى الله عليه وسلم هذا قيب سماهو أي قيب سماهو أي كانت تكسيهين با إن كستما قولي دين أي هاري ديجري وبمعنى أنت قولي دا نوحران حقا نوسو دينجري أنت حقا نوحران حقا نوسو دينجري إن بقولي نوسو دينجري هذه لكن أي أرسيهين تيميه هذا دين عنوسو راري ديجري وحاني سو قاعد ديجرين لكتي سو قاعد ديجرين أزهر اللوني midabkiisu wuxuu ahaa azhar azharku waa cadaan casaani ku dhex jirto waasicu ljabiini dhafooradiisu waxay ahaayeen qaar waasica azaju lxawaajibi suniyihiisu waxay ahaayeen qaar waasica oo dhaadheer bay ahaayeen sawaabiqa waxay ahaayeen qaar kala baxsan fii gayri qarnin iyagoo aan waxa weeyaan aan xidhiidhsanayn oo aan isu imanaynin bimacnaa
sunniyihiisaasi horta way badnaayeen waasacna way ahaayeen laakiin iskumay dheganayn haddii isku dheganaadaan aqrab buu noqonayaa labada timo is wada gaadhaan mayaalkaasi bayaad baa u dhexeeyo waasicna wayna fara badnaayeen laakiin waxa weeyaan may xidhiirsanayn oo iskumay dheganayn baynahumaa labadooda waxaa u dhexeeyey oo muuqanayay cirqun xidid yudiruhu uu buuxin jiray alqadab marka uu cadhoodo halkaa nebiga sal slam xidid baa ka muuqan jirayoo waxa weye dhiig isku soo taagoo buuxsan waan ognahay qof markuu cadhoodo xididadu way kacaan marka labadiisaa sunniyo dhexdooda xidid baa ka muuqan jiray marka uu cadhoodo dhiig ka soo buuxsamo إن شاء الله تعالى حديثكم يرد يا إن شاء الله تعالى بهبة سيدنا مستند والناس من وجهه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين